bitamar bahbaanahay timir dhuucday baanahay mahdi aan dhamaaniyo kayd idin dhigmaanahay khayrkaygaad ka dharagtaan marka la gaaro maanta oo kale oo ku beegan 15 May sanad walba waxay ku beegan tahay markii la aasaasay ururkii gobonimada Soomaaliyeed ee SYL oo ay fikirkiisa lahaayeen dhalinyaro ka dhigay dhibaatooyinka iyo hagardamada gumaysiga ku hayay shacabkii Soomaaliyeed ee ku noolaa shantii qaybood ee gumaysiyaashii reeyb u qaybiyeen dhulka Soomaaliya oo aad uga yaraa dhulalka kale ee ku yaala wadamada Afrika dhalinyaradaasi waxay ururka ku dhawaaqeen sanadkii 1943 isagoo huwan magaca SYC Somali Youth Club waxaana maanta oo sanadku yahay 2020 laga joogaa 77 sano afar sano kadib ururkii waxa uu xuub siibtay urur siyaasadeed oo raadiya qadiyada ummadda Soomaalida oo dhan waxaana magacii isu bedelay kan ilaa maanta loo yaqaan oo ah SYL Somali Youth League oo 1960kii xornimo gaarsiiyay laba gobol oo kamid ah dhulweynaha Soomaaliya waxaana dhalintii aasaastay magacyadoodu kala ahaayeen maxamed cali nuur ayaa ahaa ninkii ugu da'yaraa waxa ku dhashay magaalada Muqdisho 1927kii waxay da'diisu ahayd 16 sano dheere xaaji dheere waxa uu isna ku dhashay magaalada Muqdisho 1926kii waxay da'diisu ahayd 17 sano huudow macalin cabdullaahi waxa ku dhashay deegaanka Mareeri ee gobolka Shabeellada Hoose 1926kii waxayna da'diisu ahayd 17 sano maxamed faarax xilowli ayaa ku jiray lamarka afraad waxa ku dhashay Mareeg oo ceeldheer ah oo ka tirsan gobolka Galguduud 1925kii waxay da'diisu ahayd 18 sano lamarka shanaad waxa ku jira daahir xaaji cismaan dhagweyne oo ku dhashay isna magaalada Hobyo waxa uu dhashay 1925kii da'diisu waxay ahayd 18 sano ismaan geedi raagi waxa ku dhashay magaalada Muqdisho 1925kii waxay da'diisu ahayd 18 sano lamarka dad waxa ku jira cali xasan maslax oo loo yaqaan Barduro waxa ku dhashay magaalada Hobyo ee gobolka Mudug 1927kii da'diisu waxay ahayd 24 sano lamarka sideed waxa ku jira cabduqaadir sheekh Saqaawadiin waxa ku dhashay degmada Tayagul ee gobolka Bakool 1919kii waxay da'diisu ahayd 24 sano lamarka sagaalaad waxa ku jira maxamed cabdullaahi xayiisi waxa ku dhashay magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir 1918kii da'diisuna waxay ahayd 25 sano lamarka tanaad waxa ku jira yaasiin cismaan sharmaaki oo waxa ku dhashay magaalada Hobyo ee gobolka Mudug 1917kii waxay da'diisu markii ururka la aasaasay 26 sano lamarka kooytanaad waxa ku jira xaaji maxamed xuseen maxamed waxa ku dhashay magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir 1917kii waxay da'diisu ahayd 26 lamarka labaatanaad waxa ku jira maxamed xirsi nuur sidi waxa ku dhashay Mareeg oo ceeldheer ah oo ka tirsan gobolka Galguduud 1917kii waxay da'diisu ahayd 28 sano ninka ugu dambeeya oo ugu daaweynaa ururka SYL waxa uu dhageystay lahaa maxamed cismaan barbe waxa ku dhashay degmada Baardheer ee gobolka Gado 1917kii waxayna da'diisu ahayd 33 sano dad badan ayaa isweydiiyay sidii dhalinyarada halganka ku bilaabeen waxa sharaxaya xildhibaan maxamed cabdi yuusuf oo kamid ahaa daayirtii ku agantooday halgankii gobonimada Soomaaliyeed SYL hormuudka ka ahayd SYL de waxa way waagaas dagaalkii labaad adduunka markuu dhacay dagaalkaas waxa ka dhashay ma garanaysaa ifaale ma garanaysaa adduunkii la gumaysanayay dhaqdhaqay gobonimada ka abuurmay kuwaas oo mar walba jiri jiray laakiin isolated ahaa ama go'doon ahaa meel ku xiran yahay jirin laakiin nasiib wanaag 1921kii dalka Soviet Union loo bixiyay oo Russia markii hore ahaa ayaa wuxuu noqday dal yani u hiilinayay isagoo la dagaalamay imberiyaalida caalamiga oo mataqaanay reer galbeedka iyo gumaysigii jiray inuu gobonimoodonkii taageero iyo gacan siiyo fikrad ahaan iyo waxay u baahan yihiin marka ay dalkooda ku horeyn karaan sidaas daraadeed ururkaas wuxuu ka mid ah ururadii dhaqdhaqaaqyadii Asia iyo Latin America iyo Asia intaba ka bilowday oo gobonimoodoonka uu ka mid ahaa marka 13 dhalinyaro ayaa asaasiyaashii noqday waxa kale oo la isweydiiyay dhageystayaal mabaadiida ay ku heshiyeen dhalinyarada SYL asaastay waa kan taariikhyahankii Soomaaliyeed Allah u naxariistay oo Jaamac Umar Ciise marka waxay soo saareen markii horeba waa ugu jiray wax taasub qaaliya in la sheegay wax dariiqooyin ah oo la kala sheegtaa inay jirin wixii ummadda kala kaxaynaya oo dhan oo tafarruq keenayana in la dagaalamo xuquuqda Soomaalida meel ay joogtaba in la raadiyo shanta Soomaali ee kala goobaan in la isu keeno isticmaalku meel joogaba in laga hortago oo dhulka laga saaro gobonnimo iyo istiqlaal si lagu gaaro in habkeed loo dagaalamo inkasta oo dhalinyaradaas oo kaashanaya shacabka Soomaaliyeed xornimo gaarsiin laba gobol oo kamid ah shantii gobol ee Soomaaliya loo qaybiyay haddana Soomaali badan ayaa rumaysan inay muhiim tahay in xis loo sameeyo oo aqal wadadoodii la raaco taasoo tusaale fiican maanta u ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka aqoonta iyo waayagnimada badan dhalintii SYL oo ka mar dhalisay ujeedooyinkii ay halganka ku bilaabeen